maamulka degmada Doqosho oo kaashanaya injineero iyo geometry ka socday dawladda hoose ee degmada Burco ayaa maanta ka bilaabmay degmadaasi howlo wada banayn ah oo lagu hagaajinayo dhismayaasha iyo muuqaalka guud ee degmada Doqosho. Xaflad siyaasada loo soo gaasmay oo lagu qabtay xarunta degmada Doqosho ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen maamulka degmada Doqosho, injineerada iyo geometryada safeygani fulinaya culimada waxgaradka iyo dadweynaha aad u tiro badan. waxaana ugu horeyn xafladani ka hadlay gudoomiyaha degmada Doqosho Maxamed Xasan Saleebaan Doob, waxaana uu tilmaamay in barnaamijkan uu yahay sidii degmada Doqosho looga bixin lahaa wadooyin wax ku ool ah si ay u hagaagto bilicda muuqaalka guud ee magaalada Doqosho. waxaana mahadnaq ballaaran uu soo jeediyay gudoomiyuhu injineer Faarax Xuseen oo isagu barnaamijkan ku fulinaya si mutadawacnimo ah iyo maamulka dawladda hoose ee degmada Burco oo iyagu ku deeqay geometryada hawshani wada ay ku saabsan tahay oo laga hadlayaa waxa weeye waa sarfeyga weey. halka dabadeeda waxa ku qoran boor baa ku qoran, boorka waxa ku yaala sarfeygu waa bilicda magaalada bina quruxsan iyo baahinta degmadooda. inta marka la yelaaba degmadu ay noqonaysaa degmo jirta oo shaqaysa haddii se la istabadago la isurtago waxba shaqayn maayaan. injineer Faarax Xuseen oo isagu farsamaqaanka hawshan si mutadawacnimo u fulinaya ayaa tilmaamay in hawshan ay tahay wada banayn lagu fulinayo degmada Doqosho si muuqaalka iyo dhismaha magaalada uu noqdo mid haboon. waxaa kamid ah horumarka ayaa kamid ah in dadku ay ku midoobaan, in dadku fahmaan in horumarku yahay hadba intii adigu aad qabsato, hadba intii hankaagu leegyahay, inta aad doonaysa inaad horumarto caruurtaada oo qiimo hareer walmeel walba cidi kaaga xeeran tahay ma jirto. wadadu waa bilicda magaalada, waa nolosha magaalada, waa horumarka magaalada. sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay wixii sirbeeya ee wixii uu soo saaro cabirkaasi soo saaro horta inaynu ku wada qarxanaan. waxaa kaloo iyaguna xafladani ka hadlay qaar ka tirsan waxgaradka iyo odayaasha deegaanka, culimada iyo xubno kale badan. dhammaantoodna waxa ay ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay barnaamijkan wada banaynta ah, iyagoo si gaar ah mahadnaq ballaaran ugu soo jeediyay maamulka degmada Burco oo hogaaminayo Master Maxamuud Axmed Xasan Dhagalaab iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cabdi Falay iyo xildhibaanada golaha deegaanka Burco kaalmada ay ka geysteen barnaamijkani wada banaynta ay laga bilaabayo degmada Doqosho. markii saddexaadna degmada ay noqotay markay iyagu halka inta iska tilmaantay waxaan u baahnayd in dadkeena wax qabto. aynu doonaynaa inaynu aqoonsiyo dawladnimo ku gaadhno oo ku hiigsanaynaa waxa weeyaan inaynu wax qabsano. Soomaaliland wax qabsato ayay ku hiigsanaysaa in ay aqoonsiyo gooniisutaag iyo ictiraaf ay ku hesho bulshada caalamka ay ka mid noqoto. maanta chance wanaagsan baynu haysanaa. geometryadii degmada Burco, injineeradii rag aad u qiimo gala oo doonaya inay wax nagala qabtaan toonbareenka magaalada ayaa inoo jooga. waxaan leeyahay chance-ka laga faa'iideysto, waa chance aad iyo aad u qiimo badan, chance-ka aan ka faa'iideysan. degmada Doqosho oo kamid ah degmooyinka uu magacaabay madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Yaale Kayn ayaa horumar ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya sida waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada bulshada ku talaabsatay tii xukuumadani cusub jirtay. waxaana la filayaa in hawshani wada banaynta inay kor u sii qaadi doonto muuqaalka iyo bilicda guud ee degmada Doqosho. Cabdirasaaq Faarax Cabdilaahi, Cabdirasaaq Nakaruma, shabakada caalamiga ee Burco Online, xarunta gobolka Togdheer, Burco.